Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale. qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta oo ka wada hadlay amniga iyo wax ka qabashada abaaraha. gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo soo saaray digniin culus kadib heshiiskii lagu gaaray Cadalle iyo sidoo kale ciidamada amniga Soomaaliya oo xaafado ka tirsan magaalada caasimadda ee Muqdisho ku qabtay burcad dhac u geysanaysay dadka shacabka. wararka dibaddana waxaa ka mid ah Kim Jong Un hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo shaaciyay inuu yeelanayo quwadda ugu weyn ee nuclear-ka caalamka. daawadayaal, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Huruuse ayaa magaalada Dubai kula kulmay dhiggiisa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Imaaraadka Carabta Sheekh Cabdullaahi bin Zayed Al Nahyan. kulankan oo ka dhacay magaalada Abu Dhabi ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka ka dhexeeya dalalkooda. waxaa kale oo ay isweydaarsadeen fikrado dhowr ah oo ku salaysan gobolka iyo kuwa caalamka intiisa kale ee qusaysa markaasi Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya ayaa ku ammaanay dowladda Imaaraadka Carabta inay taageero joogto ah la garab taagan tahay Soomaaliya iyo shacabkeeda, isagoo u rajeeyay Imaaraadka horumar iyo barwaaqo. waxa uu sidoo kale xaqiijiyay in Soomaaliya aad ugu danaynayso inay kor u qaado iskaashiga ay la leedahay Imaaraadka, isagoo ammaanay maqaamka uu Imaaraadka ku hogaaminayo heer gobol iyo heer caalami. dhanka kale, gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa soo saaray digniino ku socota odayaasha dhaqanka, ganacsatada, cid kasta oo isku dayda inay isku dirto beelo ku dagaalamay gobolka Shabeellaha Dhexe oo hadda heshiis la dhex dhigay. gudoomiyaha Shuute oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in degmada Cadalle ay u tageen sidii loo joojin lahaa dagaal beeleedyada khasaaraha geystay ee kusoo noqnoqday deegaano hoostaga degmadaasi ee dhexmara beelo walaalo ah. gudoomiyaha ayaa sheegay in deegaanadii lagu dagaalamay ee gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka howlgeli doonaan ciidamo gaar ah iyo xeer ilaaliye ka socda garsoorka ciidamada, isla markaana cid kasta oo isku dayda in ay dagaal ka abuurto beelahaasi walaalaha ee hadda heshiiska la dhex dhigay in markaasi tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. waxa uu intaasi hadalkiisa uu ku daray in gudoomiyaha Cali Nuur Shuute in qof dambe oo qof dila tiirka la geyn doono oo la toogan doono si sharciga loo waafajiyo. ayuu markaasi intaasi ku daray heshiiska ay gaareen beelihii ku dagaalamay gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa markaasi saxiixa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Hirshabeelle, iyada oo saraakiil badan oo ciidamada qalabka sidana ay halkaasi goobjoog ahaayeen. ciidamada ammaanka ee dowladda Federaalk ee Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ka howlgala degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir, ayaa waxa ay gudaha degmadaasi kusoo qabqabteen burcad hubaysan oo dhac u geysanaya dadka shacabka oo ka mid ahaa dadka degmadaasi degan. afhayeenka booliiska Sadiiq Aadan Cali Duudisho oo qoraal kooban soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay in ciidamada amniga Warta Nabadda ay gacanta kusoo dhigeen 2 nin oo dhac geysanayay. waxa uuna markaasi sheegay in ciidamadaasi ay adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan sida biskoolado iyo qoryaha markaasi loo yaqaano AK-47. afhayeen Sadiiq ayaa tilmaamay in burcadda lagu qabtay waaxda barwaaqo ee xaafadda Xamar Jadiid, iyaga oo xilligaasi falka gacanta kula jiray. waxa uuna intaasi ku daray in mootada ay wateen burcadda isla xalay fiidkii dhac ay ka geysatay xaafadda Daalo ee degmada Howlwadaag. waxa uuna markaasi sheegay in ciidamada ammaanka ay laba jibbaareen howlgallada markaa looga hortagayo burcaddan dadka dhac u geysata habeen iyo maalin. ugu dambeyntii, daawadayaal, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay in hadafkiisa ugu dambeeya uu yahay inuu yeesho quwadda ugu weyn ee nuclear-ka caalamka, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda.
hadalka Kim Jong Un ka yimi xilli uu ku guda jiray munaasabad uu ku dallacsiinayay saraakiil ciidan oo ka qayb qaadatay tijaabinta gantaalkii ugu weynaa ee taariikhda dalkaasi soo mara. Howlgalladan ayaa sidoo kale imaanaya wax yar uun kadib toddobaad markii hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu ka qayb galay tijaabada gantaalka balaastigada ee nooca markaasi 17 oo ah midka qaaradaha isaga kala gudba. Waxa uu sidoo kale xilligaasi ballan qaaday inuu ka hortagi doono hanjabaadaha nuclear-ka ee Mareykanka, isagoo iclaamiyay in hubka nuclear-ka ay Kuuriyada Waqooyi u samaysato inay isku difaacdo iyo sidoo kale in ay kaga hortagaan khatar kasta oo kaga imaan karta caalamka intiisa kale. Waa hagaag daawadayaal, inta ayaan kusoo afmeerayaa wararka intaan ku kulmayno wararkiisa xiga. Nabadgelyo.